runtii wadada tarabuunka ilaa iyo number 4 daawade wadadan waxaan lagu xasuustaa fagaaraha tarabuunka oo lagu dhigi jiray 21 Oktoobar dabaaldega maalintaas maalintii kacaanka. laakiin hadda magaalada Muqdisho waxaas kama jiraan, isbedel weyn ayaa ka dhacay. dhismaha ugu muhiimsanaa ama dhismooyinka ugu muhiimsanaa magaalada Muqdisho gaar ahaan wadadan lagu xasuusto waxaa ka mid ah hoteelkii Taleex iyo warshadii Coca-Colada. runtii halkan muxuu ahaa waxaa gacanteeda midig naga qaban doona iskuulkii Banaadir sare. isla markii aan dhaafno iskuulka Banaadir sare runtii waxaan aan arki doonaa dugsigii sare asaguna Xamar oo runtii nagu leh xasuus fara badan ama dad badan oo reer Muqdisho ah ay xasuustaan dugsigaas Xamar sare. runtii Xamar sare muxuu ahaa marka la dhaafana waxaan aan arki doonaa iyadana muxuu ahaa Shalema Kutore iyo wareegii number 4 gaar ahaan taaladii Axmed Gurey iyo ex safaaradda ama dhismihii safaaradii Masaarida number 4. xaqiiqatan wadadan waxay ahayd wada yacni halbowle ah oo de markii aad hore ugu sii socotana aad ku tegi karto muxuu ahaa ilaa iyo airportka. laakiin maanta ma aadayno dhinacaas iyo airportka, waxaan u leexan doonaa runtii dhinacan iyo wadada aada isbitaal Banaadir sii marta muxuu ahaa Zobe. muxuu ahaa wadadan iyada laftirkeeda waxay caan ku ahayd muxuu ahaa CIDD iyo wasaaradii hargaha iyo saamaha, wasaaradii ayadana beeraha dee ilaa aad ka gaarto muxuu ahaa wasaaradii hidaaya tacliinta sare oo midig inta badan qaban doonta iyo wasaaradii qorsheynta qaranka ilaa wasaaradda arrimaha dibadda isbitaalkii Banaadir. daawade wadadan wada istiraatiiji ah marka la eego wadooyinka magaalada Muqdisho waana wadada Maka al-Mukarama oo caanka ku ah yacni dhismooyin fara badan iyo isku xirka magaalada, runtiina ah wadada ugu weyn magaalada Muqdisho. ma gaari doono dhinacaas iyo isbitaal Banaadir, laakiin mar kale ayaan idiin soo duubi doonaa. waxaan hadda uu socdaalkeena ku ekaan doonaa ilaa iyo muxuu ahaa gurigii dhismihii wasaaradda hidaaya tacliinta sare ee agaarka Zobe. daawade markasta waxaan isku dayi doonaa inaan idiin soo gudbino meel kasta oo aan tagno inta aan ku soconno qeybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho. waxaan idiin rajeynayaa inaad nala socotaan videoyadeena dambe ee soo socda. waxaan isku dayi doonaa in aan soo badino videoyada noocan oo kale ah.